السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم الحكيم. walaalaha qaaliga ah soo dhawaada idinkoo mahadsan. haddii ilaahay ka raali noqdo maanta waxaan ka hadli doonaa 3 camal oo ducada soo dedejiso. micnaha haddii qofka uu 3dan arrimood ku dadaalo بإذن الله الباري إلهي بريديسا وهو أقبلايا وقت دو وحلا إسكالي هاي معها أيوا ضد بدن أو سميي كدبنا كشيكوي قصوين كودي لقى فهمي هدي عن كهرينو عملدا وقفك سمعنا وحا أي كليهين كو habeenka qaybtiisa dambe inuu qofka caadeysto tukashadeeda. aayaad iyo axaadiis badan baa ay ka hadleen fadliga salaatuleylka uu leeyahay iyo sida qofka joogteeya ama caadada ka dhigta adduunka iyo aakhiradaba uu ilaahay meel sare ugu gaarsiinayo. xilligan aan tilmaamayno waa habeenka marka 3 meelood loo qaybiyo meesha u dambeyso. waxa uu nabiga sallallahu alayhi wasallam sheegay habeen kasta oo na soo maro in ay ku jirto saacad ama waqti oo ducada la ajiibo. wax kasto ilaahay aad weydiisanayso haddii ay kugu beeganto saacadaas aan la soo celineynin cidna garan mayso inay saacad 60 daqiiqo ka kooban tahay, inay ka badan tahay, inay ka yar tahay, laakiin waxa la isku sheegay ee la hubaa ah in uu jiro qayb habeenka ka mid ah oo ducada ku aada aan la soo celineynin. qaybtana la iskuma qaraninoo waxa la yiri waa habeenka saacadaha u dambeeyo. marka waa qof kasta iyo dadaalkiis iyo sida uu daacad ugu yahay naftiisa. waxaa imaanaysa su'aal ma qof naftiisa aan daacad u ahayn baa jira? haa wuu jiraa. hadduu daacad u yahay adduunkana waxa uu rabo jiifka kuma sugee waxaa cad in laga rabo inuu hiigsi yeesho, go'aanna yeesho, dadaalna ku daro, tawakulna laga helo ilaahay uu la kaalmaysto isagoo ku niyadsan inuu baryada badiyo oo habeenka xilliyada dambe uu soo kaco oo aakhiradiisa ilaahay uu dambi dhaaf weydiisto inuu janno geeyo oo danta adduunyada uu leeyahay xeelad iyo awood uu ku gaaro ma hayee alla uu ka baryo inuu u fududeeyo. kaasaa daacad naftiisa u ah oo dadaalkii muuqdayna wado sirta la isku dhaafay ee ku adeegsaday aflaxaanna ilaahay baa waafajiyay. waana ducada mid aan ka hadlayno waqaala rabbukum udcuuni astajib lakum. waa ballan uu ilaahay qaaday. rabbigiin wuxuu idin yiri ibaryo waan idinka ajiibiye. wuxuu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam adducaa'u silaaxul mu'min. ducada waa hubka mu'minka, yacni qofka mu'minka ah waxa uu wax iskaga difaaco waxa uu doonayana uu ku gaaro ee dadka aysan wada fahmaynin waa ducada. meeshaan qodobo iska kala dhaxgalay. waxaan idin iri salaatuleylka oo la joogteeyo habeenka qaybtiisa dambe waa mid ka mid ah camalada soo dedejiso baryadaada. ilaahay muraadkii aad weydiisatay durba inuu kuu imaado sabab bay u noqotaa. lambarka 2 waa ducada oo aad badiso xilli kaste, gaar ahaan xilligii aan soo sheegnay ee salaatuleylka aad tukanaysay ama markaad ka faaruqdaba sujuudan ilaahay waad ku baryi kartaa, salaada markaad ka baxdana waad baryaysaa. sidoo kale waxaad ilaahay aad u baryaysaa adinka iyo aqinka laba dhaxdooda waqtiyada ay ku beegan tahay. haddii aad saacad haysato waad qiyaasaysaa, haddii aad ka agdhowdahay masaajidna waad maqashaayo fursad weyn baad haysataa. wuxuu rasuulka sallallahu alayhi wasallam yiri ducada lama soo celiyo adinka iyo aqinka laba dhaxdooda, samada furan toos baana looga ajiibayaa qofkii xilliyadaas ay ugu beeganto. waxaa ka mid ah salaada markaad ka baxdo inaad ilaahay dambi dhaaf weydiisato oo aad janno ka barido, naar ka magan gasho, kadibna wixii adduunyada u baahan tahay
aad weydiisato, laakiin waa adkeynaynaaye ducadaas waa inaadan kala joojinin. haddii aad doonayso inuu ilaahay kaa ajiibo oo farxad kadis ah kuu soo diro, waa inaad ducada joogtaysaa ood habeen iyo maalin boodaa, oo saacad kastoo niyadaada ay kusoo dhacdaba waa inaad ilaahay baridaa. jimcahoo kale saacad baa ku jirto, haddii aad dabeecadaas caadaysato in mar kastaba ilaahay ama aad niyada ka barido ama aad afka ka baridaba, marbaad haleeleysaa waqti ducada aan la soo celinin, ama habeen ha ahaato ama maalin ha ahaato. marka waa inaad sirtaana ka faa'iideysataa. waxaa jira waqti kale oo aad hurdo, waa inaad duceysataa waqtiga aad hurdada ku jirto. wax macquul ah inaad ila yaabto oo istiraahdo sideen u duceysanaya anigoo hurdo. waxaa jira xadiis nabiga sallallahu calayhi wasallam uu sheegay, qofka markuu habeenkii seexanayo weyse ku seexda, waxaa u imaanaya malag, habeenkaasoo dhan waa uu ilaalinaya. marka qofka uu dhanka kale isku rogaaya ama uu gadoomayaba, malagga uu u duceynaya, wuxuu dhahayaa ilaahayow u dambi dhaaf, ilaahayow u naxariiso. niyadda waad ka toosaysaa dabcan, ama waxaaba laga yaabaa inaad dan usoo kacday, ama ilmaa kugu toosay, ama musqul baad u baahatay, ama shanqar iyo waxbaa kusoo kiciyey, ama waxaad is aragtay adigoo soo kacay oo taleefon iyo saacad wax ka fiirinaya. si kastoo ay ahaataba, qofka isagoo seexday hurdada wax un kasoo kiciyaan, hadduu yiraahdo subxaana allah walxamdulilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata illaa billaah, intaas markuu dhaho, wuxuu rasuulkii alle sallallahu calayhi wasallam yiri, haddii qofkaasi uu 2 arrimood alle weydiisto wuu siinayaa oo lama soo celinaya baryadiisa. muxuu dhahayaa allahumma ighfirli, ilaahay ii dambi dhaaf. hadduu dhaho, ilaahay dambiyadiisa wuu u dhaafayaa. wax kale haddii uu weydiistana waa la siinayaa buu yiri nabiga sallallahu calayhi wasallam. haddaad doonto af soomaali ku weydiiso, ilaahay luuqaduusan aqoonin ma laha, waxaad u baahan tahay inaad dikrigaa akhriso, subxaana allah walxamdulilah walaa ilaaha illa allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata illaa billaah. intaas qof aan aqoonin ma jiro. waxaad raacsanaysaa ilaahayow ii dambi dhaaf, ilaahayow waxaa isii, ama ilaahayow culayskan iga qaad, ama ilaahayow shartaasaan kaa magan gelayaa. wixii markaa walbahaar kugu hayo adaa garanayo. camalkii saddexaad ee ducada soo dedejiyo waa khalwada. khalwo itikaafna waa la yidhaahdaa, waa qofka oo meel gaar ah keligii tagayo. tusaale ahaan qolbaad keligaa degan tahay, qolkaaga unbaad xiranaysaa. waxaa macquul ah kor inaad dad kale guriga ku wada degan tihiin oo qolalka kugu degan, ama living roomka ay dad kala joogaan. adiga kaagan haddii aad xirato, taleefankaagan aad iska damiso, cid ku mashquulinaysaa ma laha. waad soo weyse qaadanaysaa, ilaahay baa waxaad u baryaysaa si qalbi ah, adigoon cid ku qasaysaa jirin. waad u calaacalaysaa, ood isku dhildhigaysaa, baahidaadaad ku celcelinaysaa, ood ilaahay ka baryaysaa. waqtiga adiga aad heli kartay ku xiran tahay. haddii aad saacad fadhin karto, 10 daqiiqo xitaa way kugu filan tahay. haddii aad maalinkii ama gelinka hore aad 10 daqiiqo sidaa ka samayso, oo gelinka dambeena aad sidaasoo kale 10 daqiiqo kale samayso, oo habeenka xiliyada u dambeeya intaad soo kacda 20 daqiiqo samayso. khalwa waxaa la yidhaahdaa ilaahay oo aad la keliyooto, waqti aadan u ogoleyn cid kale in ay ku qasto ama ku mashquuliso. sirta ku jirtana waxa ay tahay qalbigaagaa soo xaadiraya marka uu qofka intuu keligii noqdo, wax kasta oo mashquul u keeni karana uu meel iska dhigo, salaad sunno ah tukado, marka hore ilaahay dambi dhaaf weydiisto, kadibna asagoo qalbigiisiina xaadir yahay, meeshaana aan dan kale usoo fariisanin iyo cid kale toona ilaa ilaahayga abuurtaya lahaa ma ahane, weydiistaana baahidiisa oo dambi dhaaf ugu horeyso iyo muraadka kale uu leeyahay, asagoo dareensan inuu ilaahay arkayo, maqlayo, u dhow yahay, waxa uu weydiisanayana awood u leeyahay, qadinna doonin, oo meeshaan uusan gacmo maran kala kacaynin. taa qofka hadday ka dhaadhacdo wuu helayaa ilaahay niyadaas wanaagsan ee uu ka qabo, wuu rumeynayaa. ducadana rasuulkii sallallahu calayhi wasallam baa sheegay
in qofkii ilaahay gacmaha u taagto uu ka xishoodo inuu ayagoo maran u soo celiyo. Marka waa inuu yaqiintaas qabaa oo 100% ah. maanta waxaan aan ilaahay u soo doontay wuu isiinayaa. deeqsinimadeedana wuu leeyahay, naxariisteedana wuu leeyahay. Horey buuna ugu ballan qaaday adoomadiisa inuu ducada ka ajiibayo. haddii saddexdan camal uu qofka kulansado biidnillaah, baryadiisa ilaahay wuu usoo dedejinayaa natiijadeeda. aad buuna ugu farxi doonaa. laakiin waa inuu joogteeyo camaladan aan ka hadlayno intay uu isbedel ka helayo. xitaa hadduu isbedel helo waa inuu ilaahay u dhawaadaa oo camalada khayrka ah badsadaa oo wadadaasi uusan ka dhicin. markaana waxaan rabaa inaan idinla wadaago qiso. camaladan aan ka hadlayo waxaa jirta gabar ka mid ah gabdhaha channelka oo sida ay noo sheegtay aad iyo aad ugu dadaashay kuna guuleysatay oo ilaahay uu ku siiyey muraadkeedii. gabadhan waxay tiri waxaa igu dhacay cillad anigu aan garan waayey oo guurkii baa igu adkaaday. qof kasta oo la sheekaystana sabab la'aan buu iga tegi jiray. waxay tiri wax walba waxaa iga darnaa oo walbahaar igu reebay xiriirada haba iga burburaan oo nimanka haba iga tagaan maba xumee si isku mid ah igaga tagaan. mararka qaar waxaan isdhahaa nimankan may soo heshiiyeen. qofka waxay tiri siduu dareen iigu muujinayo oo rabitaan aan uga arko oo iskugu fiicannahay, sheekadayna guur un ha soo gaarto markaasaa iskugu keen dambeynayso. marba haddii aan heshiino hawsha halkaas ma dhaafayso. waxaa laga yaabaa dib dambe inaan la ii soo wicin, aniga haddaan u wacana aan taleefon la iiga qabanin, haddii la iga qabtana la ismoogeysiiyo oo yacni bahdilaad la igu bilaabo. hadda waxba kuma sameynin, dagaal lama dhexmarin, waxba iskuma aanan fahmi waayin. waxa ay tiri qof hool xun ma ahiyo, dadku arag xumaday kaaga tegayaan ismalihi, ma dhaqan xumi. intaasi waxaaba iisii dheer hanti baaba leeyahay oo naag maanta nin wax weyn uga sii baahanayso maba ihiba oo baahi baa lagaaga cararayaa iyo adigaa ka badbadiyay isma dhahayo. waa ixtiraam badanahay. waxay tiri marka aniga waxay igu dhacday cuqdad, anigii inaan iska shakiyaan bilaabay oo qalad kastoo dhacaan aniga iska saara korka. sababtoo waxaan leeyahay maxay ku dhacday inaa 5 nin 6 nin ay isku si kaaga tagaan, waxaan ay nimanka kugu arkayaan yaa islaan oo kuu sheego. anigoo aad u walbahaarsan waxaan sameeyana garan la. yaa waxay tiri markii dambe waan xanuunsaday. mararka qaar wax aad shar moodo khayr kuu ahaa jiro. xanuunkaas markuu igu dhacay waxay tiri aad baan uga naxay, waan sii niyad jabay. waxaan iri haddana matii aad ogeyd way jiro kuugu darmatay. ilaahay qadartiis waxay tiri xanuunka khayr buu ii ahaayo waxaan bilaabay intaan aad u cabsado is iri cilladii horeaba la qaatay, hadda ilaahay caafimaadkayga ii soo celi. wax aanan horey u sameyn jirin baan xilligaa bilaabay oo ah inaan ilaahay u dhawaado, inaan ducada badsado iyo dikriyada qur-aanka intaan aqaan inaan isku akhriyo. waxay sida ahaataba waxay tiri xanuunkaygii sixir buu noqday. waana sababta aan u leeyahay waxaad shar moodaysaa khayr noqdo. xanuunkii aan marka hore niyadjabka kasii qaaday xal buu noqdayoo ciladeedii baa soo baxday horey ii haysatay. oo guurkaba waxay tiri qof waxaan ahaa laga sixray ama laga xasday. waxa liiga kala cararayana cillad ani haysata ma ahee balaayo oo xasad maleegayay ahayd. jid baa markaas ii baxay. waxaan bilaabay inaan ilaahay baryo, inaan khalwo sameeyo, habeen kasta inaan soo kaco, saacad kasta inaan duceysto, maalin iyo habeenba. ilaahay baa ku mahadsane. waxay tiri riyaan arkay inuu sixirkii buray ah, in xasadkii uu ilaahay iiga heliyey oo wixii uu igu xiray oo dhan alla iga furay. waxaan dareemay bay tiri nafis, caafimaad ahaanna waa raystay, nolol ahaanna waa isbedelay. isla markiiba waxaan samaystay xiriir. intii aan qof soo bartay qofkii ugu fiicnaa
ee anna aan ugu jacaylka badnaa baa waxay tiri isbaranay. Markaa isbaranay oo aan heshiinay, wuxuu qofkii bilaabay inuu hore iga codsado inuu reer ka tago soo doono. Waxaan bilaabay tiri inaan difaac xirto. Marka hore anaa difaaca liiga geli jiray, laakiin hadda waxay tiri waan taagtay. Balaayadii baa ileen Ilaahay iga reebay. Sidii gabar lagu yaqaanay baa waxay tiri markaan inaan anigu waqti qaato, inaan wax walbo aan rabo sheegto, inaan waxaan bilaabay tiri aan dhaho hadda degdeg ma qabo. Sababtoo waa ogahay tiri inay wax walba toosan yihiin. Sidaas daraadeed wax walba waxay igu dhaceen bay tiri sidaan aniga jeclaa. Xiriirkeygi waa guuleystay. Hadda waxay tiri waan deganahay. Ilaahay wuxuuna siiyey nimcooyin badan. Aad baan u faraxsanahay. Waxay tiri waxaan arkaa hadda gabdho badan oo sideedii oo kale loo hayo, laakiin aan dareensaneen. Anigaba markeygii hore waxay tiri ciladeyda ma garan jirin ilaa inaan xanuunsaday oo xanuunkaas uu alle wax ku fashiliyay ma ahane. Marka hore waxba iskama ogeyn. Waxaan arkay tiri gabdho ciladaheygii oo kale leh oo ka cabanayo. Aan si cadna u soo wada bixi karin oo xoogaa way iska xishoonayaan gabdhaha. Qisadeyda markii waxay tiri walaalay waxaan rabaa inaad dadka la wadaagto sida gabdhaha astaamahaas hadda aniga aan horey u soo lahaan jiray oo kale hadda isku arkaayo si ay isku quraan saaraan oo habeenkii u soo kacaan oo u khalweeyaan oo ducada u badiyaan. Waxaa anigana aan ugu bishaareynayaa in sida ani Ilaahay cilada iiga furay oo kale uu uga furi doono. Markii waxay tiri waa la isxasdaa gabdhaha kaliya nama ahane ragga xitaa qaar baa jira ay ku dhacday arrinkaas. Haddii aad isdareento qof bilaadan ah oo Ilaahay aqli siiyay baa tahay siday wax u socdaan haddaad fahmi weydo oo dadaalkaaga iyo guuldarradaada markaad isku fiiriso islahaan waayaan. Waxaan Ilaahay ka cabsanaynin oo insi iyo jinba leh baa maanta badan oo dadka xasda oo sixir tacdiil ah u sameeyo. Waxay tiri Ilaahay ha la isku xiro. Guurka keliyana ma aha, dad baa jira horumarka oo kale laga xiro ama lagala dagaalamo, la curyaamiyo oo wahsi ku dhaco oo shaqooyinkoodii ka taga oo wax walba iska daba maraan. Qofkii hebel ahaa nolosha ka dhacay ay dadka u yiraahdaan baa jira. Marka waxay tiri qofku wuxuu u baahan yahay noloshiisa inuu hoos u eego, inuu Ilaahay talada u dhiibto, bariyo, quraanka isku akhriyo. Kuwo kale waxaa jiray tiri xanuunsan, laakiin xanuunadooda isbitaalaha haddii ay tagaan iyo haddii la quraan saaratoona aan af bixinin. Anigu waxay tiri hadda waxaan noqday waayo arag. Waxaana iga dhigay wax muddo i haystay meel aan u qaadan aan horey u garan waayay. Laakiin alxamdulillah maadaama aniga Ilaahay uu soo badbaadiyay, waxaan jecelahay bay tiri inaan dadka u iftiimiyo waxyaabo maantadan la joogo aysan ku fikiraynin ama uba malaynaynin inay jiri karaan. Amba markeygii hore waxay tiri weligii iguma soo dhicin ama wax kugu dhaceen. Qisooyin kale ayagana aad iyo aad u fara badan way jiraan. Dad saddexdan camal joogtay oo Ilaahay faraj degdeg ah u furay. Intaas ayaan kusoo koobaynaa. Qisooyinka kale haddii Alle na waafajiyo maalmo kale ayaan soo qaadan doonaa. Waa ku mahadsantihiin waqtigiina.